iyadoo sanadihii dambe falal laga naxo argagax geliya bulshada ay ka dhacayeen Soomaaliya taasoo inteeda badan ay martigelinayeen bulshada Soomaaliyeed ayaa xalayta waxaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug fal dil ah oo loo geystay gabar dhalinyaro ah oo xilligaasi ka soo baxday salaada taraawiixda kuna wajahneyd hoygeeda. Marxuumada geeriyootay ayaa lagu magacaabi jiray Nimco Cumar Shire Xuuraay iyadoo dilkan uu argagax xooggan geliyay bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dumarka aadi jiray salaada taraawiixda xilliga habeenkii. Ma jirto ilaa iyo haatan mas'uuliyiin si rasmi ah kaga hadlay weerarkan loo adeegsaday tooreyda ee lagu dilay marxuumad Nimco Cumar Shire Xuuraay oo ka mid ahayd bulshada ku dhaqan magaaladaasi. Waxaa sii kordhayay maalmihii ugu dambeeyay weerarka bahalnimada ah oo loo geystay dumarka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo oo isugu jira dil iyo kufsi, iyadoo ay xusid mudan tahay in fal isugu jira kufsi iyo dil loo geystay Caaisha Ilyas Aadan oo ahayd inan aad u daayar oo ilaa iyo haatan aan helin wax cadaalad ah. Maxamed Daahir Cabdullaahi Dulmidiid Media, Muqdisho.